بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا قيمة يقايا له فيسبوك سوشيال ميديا يوتيوب ميل بكو جرتا وحنكو سلامية سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سالة سعوتان وأدكو أركتين تايتل كدوشة waxa qasab igu noqotay oo la soo weydiiyay inaan ka hadlo arrimaha tarxiilka Soomaalida ka dhacaya iminka ka socda wadamada Mareykanka iyo Yurub ka socda marka waxa la yiri Cabdinaasir bal arinta marka waxaan isku dayay maanta oo dhan inaan maaragtay aan sameeyo baaritaan aan sameeyo oo aan ayagu say wax u jiraan dadka ugu dambeeyay oo arbacadii shalay ahayd lagu soo celiyay magaalada Muqdisho oo laga keenay wadanka Mareykanka waxay ahaayeen 29 qofood oo Soomaali ah iyo 2 qofood oo Kenyaati ah marka warkan waxaan u helay maaragtay war xaqiiqo ah yaan helay oo qof qoyskayga ah uu ku jiray oo tarxiil uu soo sameeyay marka intooda badan waxa laga soo dhoofiyay magaalada Alexandria la yiraahdo oo ku taala gobolka Texas ee wadanka Mareykanka ayaa laga soo dhoofiyay dadku marka waxay isku jireen qaar qaxooti ah iyo qaxootinimo isu dhiibay oo wadanka Mareykanka magangalyo siyaasadeed ama asylum seeker soo weydiiyay oo ay u socon weysay iyo qaar waxay ahaayeen dambiilayaal ah ama criminal kaasoo haddii xataa sharciga green cardka aad haysatid wadanka Mareykanka xabsiga lagu xukumo xabsiyada qaarkood lagu xukumo waqtiga ay ku xiranta lagu xukumo waxaad samaysay ama haddii aad samaysay dhac kufsi ama xabsi dhowr sanadood ka yar in lagu soo dhoofiyo marka xamar ay ka soo degeen shalay oo arbaca ahayd ay xamar ka soo degeen intaas oo qofood oo meesha laga keenay marka dadka inta badan waqtiga ay isku soo aaday arintan dadkan lagu soo dhoofiyay shaqo ku maray Donald Trump weli ma saxiixin arintii qaxootiga waxa ka dambeeyay madaxweynihii ugu horeeyay ee madowga ahaa Mr. Barack Hussein Obama ayaa saxiixay wuxuuna taariikhda galay Barack Obama inuu ahaa madaxweynihii ugu dhoofiska badnaa dadka ajaanibta ah ee wadanka Mareykanka dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay yiraahdaan say wax u jiraan laakiin wuxuu ahaa ninkii ugu badnaa laakiin xogaa credit laguma siin marka say wax u jiraan legislation ama sharci ayuu iminka saxiixayaa Donald Trump xogaa waxa lagu sheegay inuu saran qof stable ah xogaa maskaxdiisa aan degnayn laakiin Soomaalidu qaabkay u saameynaysan waan ka hadlaynaa maanta insha Allah marka qaab kala duwan ayay Soomaalidu u saameynaysaa waxay saameynaysaa family reunion waxa la yiraahdo ama qoys kala dalbado dadka sugaya in green card lagu siiyo ee jooga wadamada Afrika ama Carabta jooga waxay saameyn ku yeelanaysaa dadka kale ee Soomaalida ah ee visa dalbada dadka Iraaqiga ah Iran Sudan Syria iyo Yemen marka madaxweynaha Mareykanka wuxuu yiri si dadban u yiri xilligii uu ku jiray electionka uu ka hadli jiray wuxuu yiri muslimka oo dhan waan ka mamnuucaya wadanka Mareykanka marka xogaa waa lagu kacay laakiin arintii iminka si dadban ayuu uga dhabeeyay marka haddii lagu yiraahdo Iran Iraq Syria Sudan Somalia iyo Yemen haddii lagu yiraahdo waa wadanka majority dadka u badan ay degan yihiin muslim yihiin marka anaga dhankeena Soomaali ahaan arimahan qoyska waxa kamid ah anigoo Mareykan ku nool ama Yurub ku nool oo sharci weyn haysta ama passport haysta ma dhici kartaa in la iga soo dhoofiyo waa dhici kartaa boqolkiiba boqol dadku dhacdana waa la arkay oo xaqiiq ah oo taala wayna dhacaysa hadda marka link yar ayaan waxaan idin soo geliyay shabakada solarportal.com aad ka daawan kartaan way dhacdo wayna dhacaysa waxa la hayo xaqiiqo wiil tusaale ahaan Soomaali ah
isagoo Djibouti jooga oo British passport haysta passport Ingiriis haysta in Maraykanka loo musaafuriyo oo meesha lagu xiray isla markaana revocation lagu sameeyay oo maaragtay passportkiisa laga celiyay marka qofka say ku dhex kartaa marka hays oranin Maraykan iyo Canada iyo Europe ayaa ku nooshahay passport ayaa gacanta ku soo galay ma dhici karto in tarxiil lagu sameeyo sida kaliya ee tarxiil aan ugu sameyn waa haddii waddankaas ku dhalatay waa sida kaliya haddii waddankaas Maraykanka ama Ingiriiska aad ku dhalatay way adkaanaysaa laakiin dad badan oo passport haysto oo isu maleeyay inay lugaha cagta dhigteen ayaa la dhoofiyay marka su'aashu waa maxaa lagu dhoofinayaa mahmaah Soomaali ayaa jirta oo dhahaysa lambanaan maraw hadag shay geed ma daaraw qofka banaanka maraayo maradiisa geedka ma qabsanayo haddii aadan criminal aanad ahayn oo aadan tuug aan ahayn gabdhaha aadan kufsan wax aadan xadin muqaadaraad aadan iibinin oo qof ma aragtay dantiisa iyo danta qoyskiisa yaqaana waxaad noqonaysaa waxa la yiraahdo model citizen ayaa noqonaysaa ama shakhsi waddanka uu u dhashay haddii waddanka Maraykanka Ingiriiska haddii dhalashada lagu soo waddankaas ayaa u dhalatay markaa waxaad noqonaysaa model citizen qofkana model citizenka waa qof subaxdii soo kaca shaqadiisa aada ilmihiisa iskool geeya canshuurta bixiya waddanka sharciga iyo edabta lagu kala joogo u mara ninkaas ayaa la yiraahdaa model citizen haddii aad tahay in lagu soo dhoofiyo iska dhaafay adi iyo askar ama FBI ama CIA ama ciidamada MI6 ama police ma arkaysaan marka sharci walba oo la sameeyana sabab ayaa loo sameeyay reason ayaa loo sameeyay sharciyada la sameeyo waxa loo sameeyay in dadka lagu kala ilaaliyo haddii kale wadamadan aan joogno magaalooyinkan aan joogno sida magaalada London ama Minnesota ama Chicago ama Toronto qof walba isbaaro siday wadankii u dhigteen isbaar dhigan lahayd qaarkood oo hadda ku nool maxay ka cabsanayaan sharci ka cabsanayaan marka adduunku waxa lagu kala jooga waa sharciga ayaa lagu kala jooga marka fadlan share gareey waxyaabaha aan soo wado oo maaragtay la soo weydiiyay oo aan rabo inaan ka jawaabo videogan ee share gareen ku sameeyo marka dadka waxa la sameeyay memorandum ayaan hadda akhriyay oo leaked lagu sameeyay journalka weyn ee ka soo baxa waddanka Maraykanka ee la yiraahdo garabka bidix ee la yiraahdo garabka bidix ee la yiraahdo Huffington Post ayaan ka akhriyay hadda iminka in la hadlayo waxa la adkeeyay in a family reunion wadamada aan soo sheegnay oo Soomaali ku jirto lagu adkeeyo qofku u xareysnaa qofku u soo dhawaa qofkii DNA-ga sugayay qofkii dhiigga sugayay waxa kaloo lagu soo daray oo mar horena Barack Obama uu ku dhawaaqay oo jirtay in wadamadan aan ka hadalnay oo Iraq, Iran, Syria, Sudan, Soomaaliya iyo Yemen dadka u safray tusaale ahaan passport Norwegian ama Swedish ama Maraykan ama Canadian haddii aad haysatid kan Maraykanka waan ka saaraya haddii Maraykanka u socotid haddii passportada Europe aad haysatid oo Soomaaliya ama Syria ama Yemen de Soomaaliya aan ka hadlaynaa Soomaaliya markaan ka hadalno Soomaaliga legalka saxa ayaan ka hadlaynaa Soomaaliya oo legalka saxa ah waa raas Kamboni la raas ayr marka dadka isku qaldin siyaasadda iyo waxyaalaha jira marka qof uu soo weydiin oo haddaan tagana Somaliland the international oo ma aragtay Maraykanka Somaliland ma aqoonsana soo awgeed Soomaaliya aqoonsan yahay marka Soomaaliya hadda meel ka tagtid Syria shantii sano ugu dambeysay visa waiver system ku shaqayn maayo visa waiver system wuxuu yahay dadka waxa yaqaan Europe degan awal waxay ahaan jirtay waxa la goosan jiray ticket haddii aad haysid passport Talyaani, German, passport Austria, passport Australiana, passport EU oo dhan Ingiriis ku jira haddaad haysatid waxa la qaadan jiray kaliya in aad ticket goosatid visa waiver kana online ka laga dalbada ama laga apply gareeya marka you go online ka galaysaa
kabacdi markaad online-ka geshid waxaad samaynaysaa waxaad leedahay 10 daqiiqo ayuu kugu qaata waxaad leedahay maraykanka inay imaadaan raba waxa lagu leeyahay no problem labada sano u soo socota iyo welcome to USA ayaa lagu leeyahay hadda haddii aad tahay xataa qof ingiriis ah oo caddaan ah oo ama qof Swedish ama Norwegian oo indha buluug ah haddii aad tahay Soomaaliya aad tagtay ama Syria ama Yemen ama Iraq ama Iran ama Sudan shantii sano ugu dambeysay waa in aad tagtaa safaaradda Maraykanka ah ee ugu dhow wadankaaga waa inaad tagtaa haddii kale ma geli kartid wadanka Maraykanka waxaa soo saaray Barack Obama ayaa soo saaray ninkan la yiraahdo Trump hadda qabsadayna waa ku sii adkaysay marka Trumptiis way ka sii adag tahay wuxuu ballan qaaday in uu masaafurin doono tarxiil waxaan ku naqaanay wadanka Saudi Arabia laakiin tarxiilka ka soo socda wadanka Maraykanka lama arkin marka dadka is dhigtay oo isle Maraykan ayaan ahay passportkii Maraykankan wataa passportka Maraykanka waa wadanaysa nabad wadanka hadaa ku joogtid laakiin haddii sharciga u yaala wadanka Maraykanka hadda waxay doonayaan ayaa la yiri qaxootigii completely hadda 30 maalmood ay joojiyeen haddaan aqriyay New York Times iyo Huffington Post ka aqriyay 30 maalmood ugu horeysa family reunion kala sameyn jiray ama qoyska la isu keeni jiray waxay sameeyeen extreme vetting wax la yiraahdo lagu sameeyay extreme vetting waa maxay markaa waa in wax walba la baara marka ha is oranin Maraykanka ayaa laga soo dhoofiyay wadankaas 30 sanaad ku noolda ku noqonaysa hadee magac wala bedelin kara jaamac caasho xirsi xalimo lagu bedelin kara laakiin DNA indo iyo fara sida lagu bedelo waa adagtay Maraykan hal mar hadii fara laga qaado way ku dhamaatay dadkii la soo dhoofiyay shalay la keenay oo aan la hadlay 9 ka ahaa waxay ii sheegeen in xagga laga soo dhoofiyay kala barbar ay ahaayeen dad wadanka dambi ka galay oo laga soo dhoofiyay dad qaxootinimadii ay ka halawday oo la soo dhoofiyay laba qofood ayaa lagu soo dejiyay marka diyaaradda waxay ka soo kacday Alexandria oo Texas ku taala say u soo socotay meesha ugu horeysa oo petrol ay ka soo qaadatay wuxuu ahaa magaalada Dakar ee wadanka Senegal ay istaagtay diyaaradda markay istaagtay ka soo baxday Nairobi imaatay qofka aan la hadlay oo aan la sheekaysay saaka wuxuu ii sheegay in katiinad labada gacmood iyo laba lugood ma aqaan inaad daawateen film la oran jiray Con Air oo 1997 la soo daayay Con Air oo lagu qaado maxaabiista wuxuu yiri waan la soo jaabadayay gabdha ayaa ku jiray caruur ayaa ku jirtay xaasas ayaa ku jiray waa jaabad lugaha gacmaha marka waxaan weydiiyay Texas ilaa iyo West Africa oo meesha ay petrol ka qaadatay oo ah Senegal waxa loo socdaa ilaa iyo haday u yartahay 7 saac la 8 saac suuliga say u isticmaasheen baan iri wuxuu yiri hada suuliga laba wax baa loo galay suuli diyaarad qofkii raacay hadii loo galay midna waa maaragtay kaade ayaa loo galay midna lagu saxarooda wax ka dhaxay male wax kale looma galo ama hadii aad wajiga iska dhaqaysid oo kale wuxuu yiri xilliga kaliya ee katiinada hal gacan laga furay waxay ahayd buu yiri xilligii saxarada ayuu yiri ninka aan la hadlay saaka xilligii saxarada kaliya ayaa waxa la furay hal gacan la furay agent oo waxaan la socday diyaarad qaas ah oo la soo kireeyay oo agent oo waxaan la socday oo Maraykan ah ciidamada u qaabilsan school yiraahdo u qaabilsan in dadkan ay tarxiilaan katiinadii meesha lagu soo dejiyay waraaqii dokumentiga waxa faraha laga saaray qoladii kikuyada ahayd ee Nairobi International Airport joogtay markayna soo dejiyeen wuxuu yiri farahi ayaan laga qaaday indhihi ayaa Nairobi looga qaaday kadibna diyaaradda Juba ayaan la saaray waxaan la yiri xamar iska caliye runtii wuxuu ii sheegay dadka qaarkood xamar way ku farxeen sababtoo ah hal sano ay ku jireen xabsi wadankooda kulay dad qaarkoodna waxa ku dhacday buufis ama depression-kii u weynaa ayaa ku dhacay sababtoo ah qofka bani aadamka ah ma oga ilaa uu wiishka kaga yeero dadkeena dhanka kale ka yimaad waxay yiraahdeen hiblo wiishka ayaa ku yeeray marka dadkaas fursad kale ma u leeyihiin inay meel ka tagaan tabcan waa tagi karaan laakiin Maraykankii hadda wuxuu condition uga dhigay ama uu ku qasbay wadamada EU in wixii fara ah ay ka hayaan male muslim ayaan ka soo horjeedaa ama muslim ayaan ku sameynay wuxuu leeyahay international terrorism ama argagixisada ayaan la dagaalamayna haddii aad doonaysaan inaad la shaqeyno waa in aad na siisaan wixii database ay haysan ininka wada siinayna anagana na siiya Maraykan hadduu hadlana qof wax ka diidi kara male marka waxa kaloo
hadda xabsiyada la iisoo sheegay maraykanka oo ay ka mid yihiin Virginia, Texas, Louisiana, California, Nevada ku jira maxaabiis aad u fara badan oo Soomaali ah. marka maxaabiistaas criminal caadi ah oo de drug lagu qabtay ama muqaadaraad lagu qabtay ama waxyaalo kala sameeyay kala imaan waxaa lagu qabtay nin lagu ogaaday laba xaas inuu leeyahay, nin ceyrta isdaba mariyay, nin la yiri waxaa tahay dishonest ama shakhsi ma tihid ma aragtay daacad u ah waddanka Maraykanka sababtoo ah haddii aad xasuusataan magaalooyinka waaweyn sida Columbus iyo Minnesota, St. Paul waxaa hadda ka hor Soomaalidu ay ka bilaabeen in nursery la furo oo ilmaha la soo hayo oo lacaga badan fraud ay soo baxday. dad badan oo fraud lagu haya ayaa green cardkii revocation lagu sameeyay. hadda waxay sugayaan in caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho laga dejiyo. dowladda Maraykanka waxaa laga yaabaa inay is yiraahdaan dadka Soomaaliya jooga Soomaaliya meel labada maan dhibaata ka dhacda shalay waan ragnay xilliga dadka ay soo degaan dhibaatada ka dhacda xamar, laakiin dowladday la hadleen they don't care. dadkan waxay leeyihiin model citizen ma ahan. madaxweynaha Maraykanka ee hadda la doortay Trump markii uu soo degay Minnesota waa ka hadlay have a look uu dhahay Minneapolis. de Minneapolis taariikh ahaan waxaa lagu yaqaanaa inuu ahaa isagoo ka sheekayna wuxuu yiri magaalo ma aragtay German iyo Swedish dad wax soo saar leh. hadda meesha waxay noqotay yiri madowga ahaa waddanka u dhashay ayaa dhaamu yiri kuwan maalinta lagu yiraahdo madowga Maraykanka ee underclasska ayaa ku dhaama waa ku dhamaatay. marka dadkan la soo dhoofinay ma ahan Soomaali wadada marayso oo sharci ku joogto oo socoto oo passport haysato oo danteeda taqaana ma ahan. waa dadka sharciga waddanka jabi. marka sharciga waddanka jabistiisana ma ahan in aad tiraahdid waddankaas waxa lagu yaqaanaa freedom of speech waxaad inta oran kartaa, laakiin hadda waxaa la gaaray heer ah in dadka website-yada soo qora, dadka Facebook ka hadla oo ma aragtay oo xagjirayaasha ama qunyar socodka waxay ahaadaanba in dad Soomaali ah oo dadkan sirta la shaqeeya haddii ahaan lahayn MI6ka ama haddii ahaan lahayn CIA-da gabi ahaan ay indhaha ku qabtaan oo yiraahdaan waddankaas oo lagu yaqaano freedom of speech. hadda waxaa la keenay in la isdabagalo la yiraahdo ninkan Cabdinaasir maalin walba Maraykanka ha jabo, Maraykanka in la dilay ahayd, Maraykanka waxa ka hadlay bal ninkan taariikhdiisa la isoo ogaado. marka dambe ka daba imaanaysa marka computerka gashay website-yada ka gashay waxay ka daraysaa hadda wadamadan ma aragtay sida Syria iyo North Korea oo haddii waxyaalo qaarkood hadda lagu arko Maraykanka saas ayuu noqday. hadda Maraykan wuxuu ahaa freedom of speech ama inaad xor u tahay waxaad ku hadashid, laakiin hadda dadka qaarkood ee wadamadan todobadaha aan sheegnay haddii aad tahay oo istiraadid gurigaaga oo meel hebel ku yaala ama sidan ayaa waxaad dhibaato u keeni kartaa xataa qoyskaaga iyo dadka qaraabada aad tinay dhib u keeni kartaa sababtoo ah waa lagu eegaya waxaad doontid, waa lagu dabagelayaa, qof Soomaaliya lagu soo diraya. marka dambe adoo meel safar u socdo waxay dad badan bay ku dhacday xataa Asian ah dadka Asiaatiga ah ee ku nool waddanka Ingiriiska ama Pakistan ahaadaan ama India ahaadaan iyagoo isku diyaariyay inay aadayaan waddanka Maraykanka Disneyland ayay u socdeen ayaa la yiri airportka wax walba marka la sii yiri dowladda Maraykanka waxay ku tiri ma soo gali kartid waddanka oo dhibaato weyn ay ka dhacday. marka dad badan ayaa soo socda. waxaa dhacday waddanka Tunisia waxa Europe Jarmalka iyo wadamadan Sweden ay go'aansadeen in dad badan oo xagjirayaal ah oo lagu eeday inay yihiin argagixiso in waddanka lagu soo celiyo. dad badan ayaa ka banaan baxay ma doonayno in la soo celiyo ay yiraahdeen sababtoo ah dhibaato bay keenayaan. marka wiilka gangsterka ah ama gabadha muqaadaraad ku iibinaysa Toronto ama Minneapolis ama Chicago ama California oo weligeed Soomaaliya arkin waxaa laga hadlayaa Maraykanka adoo hal bil jira haddii lagu geeyo xataa oo konton jir ay ku soo dhoofinayaan. it doesn't matter haddii aad ku dhalatay maya de xabsi daa'in xabsiyada Soomaaliya waa laga buuxaa qof walba waa ogyahay. marka dadkan hadda la soo celiyay waa bilowgii. arrintaana waxaa saxiixay oo ka sheekeeyey ironically ay dhahan Ingiriiska madaxweynihii hore ee Afrikaanka ahaa African Americanka ahaa oo ahaa ninkii ugu badnaa ee wax soo dhoofiya. marka hadda mar dhow special plane oo jumbo jet ah oo 300 oo Soomaali ah oo la soo dhoofiyay ayaa Muqdisho ama Hargeysa ama Boosaaso Kismaayo lagu soo dejin doona. dowladda Soomaaliya tan dhalan doonta hadduu alla yiraahdo wixii ka dambeeyay 8 Febraayo ma diidi karaan. dowlad iska daa Soomaaliya dowladihii Europe xataa ma diidi karaan in qof loo soo celiyo sababtoo ah waa trade
america waa wadan awood leh quwad leh powerful ah marka ma diidi karaan marka dhalinyarada oo ku nool iminka daawanaysa ama sheer dhaha dadka say wada gaarto adduunkii waa isbedelay ama baasabor maraykan hayso ama ingiriis hayso wax walba hayso dad badan oo hadda soomaali ah haddii aan ku soo celiyo oo ku nool waddanka UK ayaa baasaboorkii laga celiyey oo waxay ku taagan yihiin hal lug kaliya ku taagan yihiin sababtoo ah waxyaalo ay isdaba mariyeen tabcan haddii bas lagugu qabto adoo ticket aan wadan cid baasaboor kaa qaadaysa male laakiin waxyaabo badan ayaa jiraan la iskaga qaada ayaa jiraan baasaboorada baasaboorka marka dad ayaa laga yaabaa maxaan uga baahanahay baasaboorka haddii caruurtaada meeshay ku dhalatay oo ku kortay iskuul ay ku dhigtaan oo xabad iyo qarxis aan dhigtaada ka yeeraynin baasaboorkiisa dan ayaa lagu wataa marka weli way yar tahay qof Soomaali oo intuu yiri baasaboor Ingiriis ama Mareykan baan isticmaalayay waddanka ayaan ku laabanay aad bay u yar tahay qof walbana waa ogyahay marka dhalinyaradan ku nool especially wadamadan Yurub waa wadan liberal ah oo dacwo aad gali kartid human right wax walba ay joogaan laakiin xaalka Mareykanka wuu isbedelay marka wax isbedelaan waxa loo baahan yahay in adiguna aad isbedeshaa isbedelkaas wuxuu ka imaanayaa sharciga sida loo sheegay reason ama sabab ayaa loo sameeyay sababtaas waa in aad respect u samayso ama ilaalisa laakiin hadda dhalinyaro badan ayaa Mareykanka iyo Canada lagu dilay oo Soomaali ah waayo sharciga la jabiyay ama iyagoo wrong place wrong time meel taagan arrimahaas ay ku dhacday marka waxaa loo baahan yahay sharciga waddanka Mareykanka u yaalo in aad u hoggaansantaa haddii kale hadday dhib kugu tahay diyaarad soo raacay waddanka isaga laabo wax ka dhaxeeya male sharciga Sweden u yaalo waa in aad u hoggaansanaataa haddii kale diyaarad soo raac waddanka isaga soo laabo waddanka UK waddan walba oo ajnabi aan ku nahay sharcigiisa waa inaan u hoggaansanaa waxyaalo badan waxaa jira aan laga helinayaa jira laakiin waxaa hubaal ah wadamada Yurub sida Soomaalida respectiga loogu siiyo sida loogu qiimeeyo sida iskuulka loo siiyo sida masaajidda loogu dhiso kama helaan wadamada muslimka qaasatan wadamada qaliijka taasna waa fact jirta qof walba uu ogyahay marka laakiin ha noqonin qofkii isdhigtay oo farxadda ka badatay oo kibray oo dhaqankii qaybtii xumeed ee Soomaalida la soo baxay kadib ha noqonin oo dagaal ha gelin oo maaragtay gangster iska dhigin waayo hadaa gangster noqotid waxaad noqonaysaa dead gangsterna waxaa ku sugaysa qabuur 6 mitir ah oo baraf ayaa ku sugaysa haddii aad isleedahay gangster laga baqay aad noqonaysa ama daraga aad iibinaysaa Mareykanka haddii aad nasiib aad leedahay Mareykan hadduu dambi aad gashid kolley 200 300 400 sano ayaa la isku xukumaa laakiin adoo wiil yar ah oo Soomaali ah 19 jir ah haddii xabsi Mareykan lagu geeyo waxa dhacaya waad ogtahay waa lagu kufsanayaa girlfriend ayaad u noqonaysaa wiilasha madowga ee xoogga leh ee 500 sano lagu xukumay oo aan weysada u dhowran ayaad girlfriend u noqonaysaa dad ayaa lagu arkay xabsi ku yaala waddanka Ingiriiska wiilal girlfriend ay u noqdeen ama lagu qasbay in lagu dhex guursado meesha oo isagana isbedelay horta Ilaahay anaga hay waxa soo kale oo u socda sidii dumarka kale sababtoo ah Soomaali lama dhigi karo waa nin murqo waaweyn oo rag iska dhicin kara ma aan haddii xabsiyada waa aragtay barnaamijyada YouTube ka daawo American Toughest Prison ku qurmeesha haddii aad aragtid girlfriend ayaa noqonaysa markaad isleedahay action samee ama muqaadaraad iibi ama sharciga jabi ama midi la soo bax ama bistoolad la soo bax bal indhaha isku qab waxaad tiraahdaa is it worth it ma u qalantaa inaan 2 saacadood aan cool iska dhigo xabad aan la soo baxo ama qof midi aan galiyo ama qof aan waabsado is it worth it inaan 30 sano xabsi Mareykan aan liigeeyo oo girlfriend aan u noqdo nimanka madowga haddii ay worth it tahay samee haddii laakiin aysan ahayn ha sameynino rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri haddii aad xanaaqsan tahay hadaa istaagan tahay waa la fadhiistaa hadaa fadhisid waa la seexdaa waa la fadhiistaa marka xanaaqaaga ayaa la dagaalamaa haddii ixsaan lagu sameeyana Muqdisho oo xabadda ka dhacayso oo la isku qarxinaya ayaa lagu soo tuuraya dhalinyaradii shalay ku dhacday oo kale oo la keenay meeshaas dadka qaarkood ma u qalmeen
dadka qaarkood uma qalmin dadka qaxootiga ahaa ee daacadda ahaa ee iska dhiibay waddanka maraykanka uma qalmin in lagu soo celiyo waddanka soomaaliya xilligan hadda isla maanta waxaan maqlay norway oo 1680 qofood soo celinaysaan maqlay qaarkood sharci ahaan laga soo celiyay qaarkood ay ku jireen maaragtay xabsiyo laga soo saaray marka ma waddamadu isku dayanayaan hadda dee haddii faransiiska oo haddana ku dhawaaqay ninka ku guulaysan doona ee xisbiga garabka midig ku guulaysan doona ama naagtaba hadday timaado cunsuriyadda waxay yidhaahdeen xuduudaha oo Schengen waa la xiraya ayaa la yidhi marka sheekadu mar walba waxay ku socotaa dadka muslimka ah khaasatan dadkeena annaga hadda waxaan noqonay wax walba afar bugta ayaan noqonay shalay reportkii la soo saaray waxaan noqonay 10 sano ugu dambeeyay number 1 ayaan galnay maasha Allah waa wax aan lagu farxo number 1 aan wax ka noqonay waxaan noqonay number 1 waddanka adduunka corruptionka musuqmaasuqa kaas waxaan ku eedeynaynaa kuwa Soomaali joogan ku eedeynaynaa laakiin qurba joogteena waddankii 30 sano ka maqnayd hadda deportation lagu sameeyay adoo shaatiga wato maxaad sameynaysaa waddankii maxaad ku sameynaysaa oo aad tiri maxaa lagu soo xiray haddii aad tiraahdid waxa la isoo xiray sharci la'aan ay ku dhacday waa wax la qaadan kara laakiin haddii aad tiraahdid habeena meel shiisho ah yaa gabar ila socotay wiil soo fiiriyay fiiran ku bilaabay madaxan ka jabiyay koomo galay waa la xiray 5 sanaan girlfriend waxaan u soo ahaa nin madow hadda la isoo daayay dee nolosha ku taala maxay tahay marka taas laga fikiraa aqliga saliimka ah kaas waa inuu ka fikiraa marka hadda Donald Trump wuxuu ku dhawaaqay oo hadda la soo saaray maanta Huffington Post ka fiiriya journalka la yiraahdo journal muhiim ah oo soo qora waxyaalaha garabka bidix ee ka soo horjeeda dowladda Mareykanka waa Huffington Post la yiraahdaa fiiriya family reunionki 30 maalmo horta qaxootiga gabi ahaan uu joojiyay 30 kan wuxuu dhahay waana ku darsan karaa waqtigan Donald Trump he doesn't care about anything Somali waaba sheegay wuxuu yiri bal fiiri wada Minnesota say u galeen uu yiri runtana haddii laga hadlo Minnesota qofkii arkay marka society-ga haddii aan dad badan waa jiraan oo wax bartay waddankii wax ku soo kordhinaya waddankii wax u qabanaya waxay ahaadaan laakiin runta haddii loo hadlo majority-geena kuwa Australia jooga kuwa Europe jooga kulligeena haddii loo oga boqolkiiba 5 ama boqolkiiba 15 ayaa waddankii la dhihi karaa maanta waxay u sameeyeen waxay ka qayb galayaan waxay sameynayaan laakiin inteena kale oo Soomaali ah weli waxaan wadalnaa mentalitygii ama wixii aan kaga soo tagnay waddanka ayaan wadanaa kaasoo ah gabar tuulo waa ka wadi kartaa laakiin tuulo gabar kama wadi kartid ayaan ku noolnahay weli waana fact wax jira waa marka you can take a girl from a village but you cannot take a village from a girl gabar tuulo baa ka soo kaxin kartaa tuulo oo Soomaali ku taala gabar haddii aad ka soo kaxaysid oo aad keentid Washington ama California ama London aad keentid weli gabadhii tuuladii kama soo kaxaynin tuuladii gabadhii kama kaxaynin waayo waxa la leeyahay dhar magaalo sidii loo gashtay something like that marka haddii aan mentalityga meesha aad joogtid Donald Trump iyo kuwan Mareykanka iyo kuwan UK iyo kuma dhihin waddankan haddaad timaadid waxaad samaysaa diinta bedel laguma dhihin diintaadii xor baad u tahay masaajidkaaga xor baad u tahay qofku waxaad gudbaay male inkastoo hadda Soomaali badan oo qaxooti jir markay iska dhiibaan rabeen ay yiraahdeen webiga iyo meelaha baptism lagu sameeyo madaxan loo gali kristaan ayaa noqonay si sharci u helaan kaas diin xataa kama qofkaas oo kale waa iimaan yuk alla jira Soomaaliya oo kale kuwaas diin kama aha marka qof diintaada kugu haysta male qof kugu haysta male laakiin calool xumo waxay noqonaysaa maalinta xabsi waxa dhaanta xabsiyada especially xabsiyada Norway waxay la mid tahay 5-star hotel laakiin xabsi Mareykan hadii lagu geliyo 5-star iska dhaafay xaasad noqonaysaa adoo wiil Soomaali ah ayaad xaas u noqonaysaa mahadsanid fuad oo soo sheergareeyay Huffington Post oo journal muhiim ah xaas baad noqonaysaa dhalinyarada Soomaali da'da yar inay u sheegay haddana waxaaba la sheegay xabsida Soomaalida wiilasha yar ka buuxa wiilasha Soomaali way jecel yihiin waxay leeyihiin waa dhaylada ayaan loo keenay marka nin madow gangster ah oo murqiis halaas la egyihiin maalinta qol lagu soo xiro oo danta ay kugu qasabto inaad noqotid haddii aad isleedahay is worth it go ahead adduunka aqli ayaa lagu maraa laakiin haddaa israaday sheekada Soomaaliya hadda weli waa yarta inaad aragtid gaalo isdagaalaya ama isfiiray wadad way yar yihiin lisma fiiro lisma dagaalo qof walba isku qaylin qof walba dantiisu yaqaan laakiin sheekada Soomaaliya hebel anaa ka adag anaa fiiray waxa soo kale waa laga tagay marka hadda sharcigii waa soo saaray waa fududahay wuxuu leeyahay ma doonayo muslim in direct u jiri مسلمين كلا ربنا مركا مسلمين تأن ربنا ومسلمين ضعيف كا ضعيف أهان دين أهان لقى موضوع والضمادة ضعيف كي مادين تصال أهان سان الله سبحانه 9/11 سومالي كمجرين سوريان كمجرين إيران كمجرين
ciraaq kuma jirin suudaan kuma jirin dadka wadamada ku jiraan ognahay wadamadaas lama baan gareen sababtoo ah wadamadaas levy ayay ka haystaan waxay ka haystaan waa wadamo qani ah haddii aad ku shaqajaatid kugu shaqajaamayaan business ayaa meesha yaala laakiin Soomaali business yaal muxuu yahay have a look this Somalis u dhahay Donald Trump hadda aan la hadlay wuxuu soo saaray in dadka criminalka ah ee ma aragtay oo immigrant ah ama soo galootiga ah ama ajaanibta ah dhan ayaan soo qoraya arrintan waxay ku soo socotaa 1937 qaabkii Yahuudda uu Hitler ugu bilaabay qaabkan ku bilaabay in ganacsigooda laga hor imaado in crime-kay sameeyaan la soo qoro wax walba ayuu ku bilaabay Hitler kadibna dee wixii dhacay waa la ogaa ma aaminsanahay Donald Trump inuu Hitler yahay I don't think so it's not fair la yiraahdo waa nin ay intaasoo milyan oo Maraykan ay doorteen oo Soomaali xataa ay doorteen Somali for Trump waxaas ay doorteen laakiin qofka aqliga leh aqliga saliimka leh ee ku nool North America qaasatan wadanka Maraykanka xilligan oo kale waa inuu soo toosaan isiraahdaa this time the things are changing I have to go with the tide inuu yiraahdaa aan eega balqaabku adduunku socdo marka hadda waxa imaanaya Soomaali dad badan ayaa ku soo laabanaya Soomaali dad qaarkood waxa laga yaabaa inay ku qoslaan oo yiraahdaan maxaa naga gal inta sanay maqnaay inta lama ah waa qofka Soomaali dhibaato ka soo qabsato horta dadku waa la garanaya Soomaali xataa uma eka dadka hadda ka soo degay Minnesota ka soo degay Muqdisho shalay qaarkood waqti yar ay ku maqlaan qaarkood Soomaali ma oo eka marka haddii ay leedahay wiilashii shalay soo degay kuwa xamar inta joogay oo maaragtay meelaha orday isku ma eka Soomaalida markay Maraykan ka yimaadaan iyo qof walba way yaqaana labiskooda isku ma eka wajigooda isku ma eka wax walba marka ayaamaha ugu horeeyay horta waxa ku dhacaya depression kuwa qaxootinimada loo soo diiday kama xumi aniga I'm okay with that waxaan ka wadaa kuwaas waan ka xumahay waa bilcagsi sababtoo ah fursadooda waa waayeen laakiin dadka oo maaragtay dambiga soo galay oo is-og oo Maraykan dambi ku kala soo dhoofiyay I'm sorry I don't feel sorry for them sababtoo ah meeshaas ay tageen ma ahan Soomaaliya ma ahan oo de reerka ha loo yeero ama gabar ayaa la kufsaday odayaasha ha hadlaan oo geel ha la bixiya ma ahan Maraykanka wadan sharci ku dhisan marka iska loo darbiya la dhisaya ibraaya la sameynaya waxa la sameynaya hadda waxa soo baxday in iska daaye passaportadii oo visa waiverka waxa la yiraahdaa dadka ku nool Scandinavianka EU dadka ah German Ingiriiska wuxuu ahaadaba awal waxay ahayd online ayay gali jireen marka haddii aad Soomaali aad tahay waxba dhib male haddii aad tahay nin cadaan oo Ingiriisa waxba dhib male laakiin Soomaaliya 5 sano ugu dambeysay dad badan ayaa tagay oo passport European haysta make sure safaaradda Maraykanka ee magaalada kugu dhow inaad tagtaa haddii kale Maraykanka ticket ayaa ka qasaaraya Maraykan ma gali kartid waa mamnuuc ya ka tahay ama passport habar kuliya hayso ama Ingiriis hayso ama Norwegian ama Swedish hayso waa inaad tagtaa safaaradda haddii aad tagtay Soomaaliya okay waxa laga yaabaa inaad istiraadid passportka iyaan bedelay sidee lagu ogaan karaa Maraykanku ogaan karaa inaan Soomaali aan tagay passportka stamp Soomaali kuma qorna waan galay waan ka soo baxay marka haddii adiga aadan ticket ku gelin Soomaaliya aad lugaysay waa okay laakiin xasuuso Maraykanka wuxuu ka codsaday diyaaradaha wadankooda ka shaqeyn ilaa diyaarad Juba kama raacin Stockholm ama London kama raacin diyaarad ama Turkish Airlines raacday ama waxaad raacday Scandinavian ama British Airways ama Imaaraat diyaaradahaas oo dhan oo Maraykanka tagaan dadkii raacay database-kooda access ayay u leeyihiin marka haddii aad isleedahay xariifa tahay aad tiraahdid aniga weligay ma tagin su'aalaha lagu weydiinay xilliga applying ka sameynaysid ama aad dooranaysid waa have you been to this country last 5 years maya yaa leedahay waayo laguma oga cidka ogma leh magacaagii passportka istaan laguma dhufan waxaad ka fikiraysaa passportka istaamka igu dhignaa cid immigrationka Maraykanka arki maayo laakiin maalinta herkaan taariikhda dhalashadaada iyo magacaaga oo saddexan ay arkaan ama sawirkaaga la tuso through the ticket-kii waa ku dhamaatay 10 sano automatic haddii aan lagu xirinba 10 sano automatic baan ayaa laga dhigayaa marka dadka qaarkood waxa laga yaabaa Maraykan hadday saas tahay inaan aadama doonayo waa dhici karta dad badan oo put off laga dhigay aan tagay Maraykanka laakiin muhiimaddu waxay tahay ha isdhihin passportkaaga kuma dhufsana istaamba Maraykan kuma dhufsana Soomaaliya ama Syria ama kuma dhufsana Sudan ama maartay Iraq ama Iran kuma dhufsana waa take kartaa isdhihin ticket-kii database-kii haddii diyaaradahan database-ka aan lahayn iska socdo ee sitay manoogtada ah ay tahay dhib male haddii Juba ay ka baxday Stockholm ama London ay ka baxday dhib male waayo Juba ma tagto maxaa la yiraahdaa Maraykan ma tagto laakiin diyaaradaha Maraykanka oo tago oo dhan condition ayaa lagu dhigay la qasbay Maraykan maanta wuxuu awood u leeyahay bangiyada waaweyn ee Jarmalka intii inuu yiraahdo 100 bilyan ayaa ku ganaaxay keen haday keen waayeen waxay ka xiranayaan suuqa ugu weyn adduunka Maraykanka
awoodiisa military kaliya ma ahan waayo lagama yaabo inay kusoo duulaan Jarmal ama ay kusoo duulaan Sweden waa dhanka dhaqaalaha la iska dilay adduunka marka qoyskii su'aasha soo laabatay qoyska ka waran qoyskii la isu keeni jiray xoogaa waxay ka dhigeen in extra vetting lagu sameeyo vetting waxaa la yidhaahdaa in baaritaan awal waxay ahaan jirtay DNA iyo indhaha iyo dhiigga iyo inta hadda interview oo face to face oo adag oo 3 stage la soo maray kadibna waxay soo aadaysaa State Department waxaa kaabo u ah Trump oo hal saxiix yar hadduu ku dhufto wuxuu leeyahay bal 2 sano waa inay sugaan dadkaan aan aragnaa qaxootigii xataa Syria oo adduunka dhan hadda laga aqoonsan wuxuu yiri Trump wadankooda ayaan waxaan u sameynaa safe haven meel ah ama lagu ilaaliyo xuduud Turkiga u sameynaya marka dadkii sugayay horta dadka qaarkood waxa laga yaabaa xilligii Trump uu soo socdo muxuu sameyn karaa muxuu tari karaa taban waxyaalo qaarkood ma sameyn karo Congress-ka ayaa ma aragtay awoodaas leh oo inuu saxiix ay tahay laakiin hadda arintan Soomaalida waxay u saameysay si aan caadi ahayn dadkan la soo dhoofiyay sababta loo soo boobsiyay waxay ahayd in asaga uu tuso awoodiisa laakiin waxa saxiixay ninka la yiraahdo Barack Obama ayaa saxiixay marka su'aalaha aad ay u farbadan yihiin su'aasha ugu muhiimsan waxay tahay haddii passport European aad haysatid wadanka Mareykanka ma tagi kartaa visa la'aan ha waxaa jira shabakada eega iminka solarportal.com haddii aad eegtaan waxaa ku jira wadanka Canada oo isagana sanadkii hore soo saaray sharci ah in online laga apply gareeyo marka Canada xataa lama tagi karo Canada hadda dad tiraahdo tigid ayaan goosanaya passport waxaan isay European ma tagi kartid Canada waa inaad online ka gashaa kood waa ka fududay 4 sano ku siinayaan visa Mareykanka waa 2 sano laakiin qofkii maanta yiraahda waxaan doonayaa anoo passport German ama Swedish ama Finnish ama Norwegian haysta waxaan doonayaa inaan tago wadanka Mareykanka waa in aad 2 condition soo gashay conditionka ugu horeeya ma tagtay wadamada Soomaaliya Syria Iran Iraq Yemen iyo Sudan ma tagtay 5 sano ugu dambeysay 2012 ilaa hadda ma tagtay wadamadaas safar ma ku martay transit ma ku martay ma gash lukooda ma taabatay hadday ha tahay online kama apply garan kartid visa 10 daqiiqo ma qaadan kartid waa in aad tagtaa safaaradaas ka doonayso viisihii Soomaaliya waagi hore laga doonan jiray oo ahaa in bank statement shaqo invitation yaa ku degaysaa shaqadaas soo maraysa haddii wadamadaas aadan tagin 5 sano ugu dambeysay online ka la galaa linkiga wuxuu yeelaa shabakadu yeelaa online ka galaysaa waxa leedahay waxaan doonayaa Mareykanka inaan tago laakiin wax walba aad sameeysid been ha sheegin meesha ka galaysid haddii xuduudka Canada ka soo galaysid sida samarka la sameeyo kale insha Allah samarka waxaan doonayaa inaan sii sameeyo xuduudka Mareykanka laga soo galay Buffalo iyo meesha ahaataba waa mid laakiin haddii aad tiraahdid waxaan sameeyay waagi passportada la isu dhiibi jiray oo saaxiibkayga u dhiibay ama in adeertay ama gabaraan jeclay u dhiibay ku soo baxaysa filinkaas waa dhamaaday hal mar statement aad sameysay hadday isdhaafto way ku dhamaatay beerta ayaad galaysaa qaxootigii dadaab iyo laga soo qaaday ee qaxooti kale waxaa jira xataa Malta laga soo qaaday Soomaali badan ayaa og Malta jasiiradda Malta ee Yurub ku taala oo la geynayay dad badan ayaa laga soo qaaday Malta xataa maanta waxaan ka arkay Homeland Security website oo Huffington Post uu soo diray in temporary suspension ay ka dhigeen inay joojiyeen temporary waqti yar oo xadidan inay joojiyeen dadkii Malta laga soo qaaday jiray Kenya wadamada kale Ethiopia dadkii xataa dhiiga loo diray dadkii DNA waxa la yiri temporarily ilaa sheekadu iska tooso 30 maalmood hadda waa la joojiyay 30 maalmood waa dhamaadka bisha insha Allah nagu soo foodle February 2017 way dhamaanaysaa waxba kuma ahan Donald Trump in ma aragtay ay ku kordhiyaan ilaa iyo 3 bilood kale kordhiyaan marka sidaas ayay sheekadu isu bedeshay marka dadku uu doortay dadka militariga Homeland Security-ga advisor dadka wadadkii ugu cunsurisanaa ee uu muslim iska dhaafactay yahuuday nacib yihiin ninka la yiraahdo Bonan la yiraahdo wuxuu ka ahaa qoraa oo maamuli jiray breitbart.com website la yiraahdo oo garabka midig oo cunsuriin ah oo cunsurida caadi ah madowga nacib yahuuda nacib waxba nacib hadda kor wuxuu yiri in Mareykan joogo wuxuu yiri caruurtayda ma doonayay in iskuul yahuud ay dhigtaan de Mareykankana waxa soo kala ku tiraahday beertad galaysa saasay tahay waxa laga dhigay special advisor ayaa laga dhigay Bonan ninka la yiraahdo oo ahaan jiray breitbart.com website la yiraahdo oo website-ka xaq jirayaasha marka xilligaas ayaa lagu jiraa
hadda gal Soomaali dad markuu Soomaali waxa uu ka hadlay dadka boqolkiiba 99 way ka soo horjeedaan especially dadka ku nool Minneapolis ku nool iyo dhulkaas ku nool Soomaalida ay joogto waxay yiraahdaan noo soo dedejiyay yiraahdaan maaragtay in arrintan ay noo soo dedejiyay ma doonay yiraahdaan kuwa sharci ku leh hadii laga celin lahaa sababtoo ah iyadoo dadka iska muslim ah haddana rabshada iska badatay ayaa la dhahay waddan haddii adiga qariib ku tahay waxa mar walba dhulka madaxaaga hoos ayaa loo celiyaa mar walba waxa la iska dhigaa dantii qof yaqaan ayaa la iska dhigaa marka kaasna waa muhiim marka wadamada Yurubna tabcan ay ku soo socdaan Faransiisku waa isbedel raba inta isbedel raba laakiin muhiimadda ugu weyn waxaan soo geliyay intaan ku dheeraan waxaan soo geliyay dhanka iyo waxaan soo geliyay solarport.com meeshaad ku arkaysaan sheekadii Mareykanka waa dhamaad marka dhalinyarada waxaan kula dardaarmi lahaa oo waddanka Mareykanka jooga oo da'da yar mustaqbalkooda iyo iska baabi'inin sababtoo ah adoo hadda fursad u lahaa in jaamacadaad dhigatid waddankii xataa wax u qaban karay haddii hadda xamar lagaa tuuro adoo shaati kaliya wata waa disaster marka waxa muhiim ah in ma aragtay qof walba dantiisa uu garto taas ayaa muhiim ah marka waxaan kaga tegayaa وإن سلامية إن شاء الله وحي مرور بمعلومات وحد كإيجيسان دنكن يو solarportal.com وحي سؤال أي وحي أدنتا إن سمينه لكن أرين أنك عموسينا ما أنا أنك هرينا ما أنا وسيس عنيسا وحن سميننا وكالنا صافت ضد بدن أي وحي أسوي دينا كي فيسبوك أسوي دينا يرادين عبد الناصر بل أرين ساكرنا أي آخرنا مركان أركي وحيالا بدن دونالد ترامب وحي يري الصومالي مرحبا يري مينيسوتا كوشيغي إيربورت كدو كوشيغي مرة بويري وأنا دوفي سجاشن قفوض أي ماد دت قاركود مركي حمر أي كد جين أي سناركين دور لواتن سنة نحذن يشوك ياكل داعي شوك وين ياكل داعي مركي أي تجين ماشاس مركا إن شاء الله شير قرية سي دت كأصحابك لنا أي واركان إلى ما عرفتي next time أو live نوع أنا كل أنسو قلت دونه شير قرية وحي سؤال أنا دنك إيو فيسبوك هوس إيو سولا بورتال نفيري وحيالا بدن oo xiisa badan ayaa ku jira marka reer Mareykan bal is ilaaliya ilaaha wax ilaalin kara is ilaaliya maartay xilli adag ayaa lagu jira sanadkan 2017 lagu jiro madaxin hoos u dhiga hatta hadii qof uu feer kugu dhufto sidan inta la yiraahdo laga dhaqaa qaadis waddanka sharciga ku lahayn ama aan witness aan lahayn marka booliisna isku waalinday booliiska Mareykanka hadda waxay noqdeen cowboy dadka iska toogtaan fikir bal xasuuso waxa tiraahdaa Cabdinaasir habeenkii wuxuu yiri hadii xataa wax lagu sameeysaanaha sheekadii Soomaaliya oo Soomaalidu waa geesiin waxa iska daa geesi hooyadii ma gablantaa wadahay fulay hooyadii ma gablanta sorry fulay hooyadii ma gablanta marka ha gablamin xabsi lagu tuurin nin Mareykan madow xaas u noqon ama cadaan wuxuu ahaada Soomaaliya lagu soo dhoofinin waa in salaamaya inta nabad ku doon waxaan kaga tagayaa wassalaam calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh